وإسقوسكا أفريو توبانكا أكتوبر إلو يقاني صوبي waxa uu ka mid yahay meelaha ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho gaar ahaan xilliyadan oo dadku ay ka soo rawaxayaan shaqooyinka arday fara badan ayaa xilligan oo kale laga soo daaya iskuulada sidoo kale waa goob dadweynuhu ay ka raacaan gaadiidka BLka ah ee u kala gudba magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku dhow isla xilligan oo kale 14 Oktoobar ay kooxda al-shabaab gaari xamuula oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa halkan la beegsadeen way ku adag tahay muwaadinka Soomaaliyeed inuu jawaab ku filan u helo sababtii ku dhawaad 1000 qof oo waxba galabsan 14 Oktoobar ay kooxda al-shabaab ugu leysay isgoyska Soobe ee Muqdisho waxa dhacdadaasi ay daha ka rogtay aragtida qarsoon ee al-shabaab ee ah in qof kasta oo Soomaaliya oo jecel inuu ku noolaado Soomaaliya oo nabada uu yahay bartilmaameed ma qiyaasi kartaa xanuunka ay leedahay hooyo araga caruurteedii ay ugu dambeysay markay aadeen iskuulka oo ay ku dhinteen weerarkii Soobe way adag tahay markii indhaheenu ay arkeen eheladeena oo meedadkooda laga soo saarayo dhismayaal burburay iyagoo aysan jirin wax ay galabsadeen dawladda Soomaaliya waxay qaaday tallaabo kasta ay ku badbaadin kartay muwaadiniinteeda cadawga bartilmaameedsaday kasoo gurmadka dhinacyada badan daabulida dhaawacyada dalka dibadiisa loo qaaday iyo soo saarista meedadkii dhismayaasha ku hoos jirayba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wajigiisa laga dheehan karay xanuunka weerarkii 14 Oktoobar uu lahaa وهوبال إن أرجحسده أوبرتي إن أيدي جنة دابيان لكن واحد تاسك جوابي شعب كان سهران الصومالية أو ديجود أبحي كوي أي داوعين سيدو كلا الشباب وحي أود جليين بربرين تلسمايا شقرح بدن عاصمة ده لكن واحد تاس أقبل وعي موادين تدل كان أو دربد بوليسي طبعا واحد صوق وماشي معناها كذا عي معها واحد قياسي كرا مقدشنا طبعا وحوي من يستاجد أنتو قروح للإبناء ذي بربرية وليس ضمنا وحوي ذاتك أو مسلمين تا كل المجالدان والله واحد لي كرا وضد خير له معناها عن مرنضو استاجد والبربر كان وحي مجالدو ذا واحد لي لها ذاتك الصوماليات هسكت بنادان واحد ضعف كان إدباتان كان معطي إن برتان عن كوين دول بدل مقارنة وقع وحتى هو كالداسنان وأنا كنت نسمي إن أكل مقدم أو معناها كالداسن أو كالقيبسن عن نقصنه ضد إسكوبوبان. dhalinyarada halkan iskugu timaado oo 300 kor u dhaafaysa iyo madaxda gobolka Banaadir oo nagu soo biiray oo agabka isticmaalayna noo fidiyay waxay saakadan halkan u joogeen inay nadiifiyaan soo celiyaan bilicda magaalada Muqdisho lagu yaqaanay si nabadda iyo kor u kaca magaalada Muqdisho uu noqdo mid joogto ah oo aan laga niyad jabin oo dhalinyaradu hormuud u yihiin bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gudaha iyo dibadda dalka ayay dhacdadii 14 Oktoobar ka ilmeysisay kuwaas oo dhigay dibadbaxyo ballaaran oo ay kula hadleen argagixisada kuna muujin garab istaaga dawladooda kumanaan dadka reer Muqdisho oo ka xanuunsaday weerarkii 14 Oktoobar ayaa isugu yimid halkan oo ah garoonka kubadda cagta ee Banaadir hoos u dhaco qof kasto arday dilo hoos u dhaco qof kasto dilo qof ka dhaxayo hooyada iska dilay oo walaalka iska dilay dhammaantood nacasiin waaye hoos la hageeyo waa nacabnahay qof kasto arday dilo annaga arday aan nahay waxa uu aynana waa ardayda nagala dilay waalidkeena dilay walaalaheena dilay cadawgiina waxaan in leeyahay Soomaali dhamaan cadawgiina waxayna ku raajireen dhacdiina marka dhamaantiin baa cadawga la iska difaaco qof walba waxa loo baahan yahay inuu dhiirigelin u sameeyo hadii qof walba isku kalsoonaado waxa laga yaabaa maanta dhamaan Soomaali inay nabad ay yeelato maanta kalsoonida waa mid adduunka lagu hormaray waxaan leeyahay qof walba Soomaaliya ku nool dalka Soomaaliya iyo dibadiisaba kalsooni yeeshaan leh
soomaali meel kasta ay joogtaan waxaan leeyahay ha noolaato cabsidana la iska daayo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed dhacdadii 14 Oktoobar waxay si isku mid ah uga jawaabeen iyagoo garab taagan ciidamada waxaana shir Muqdisho ay ku yeesheen mas'uuliyiinta dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada dalku ay dhamaantoodba hoosta ka xariiqeen inaan gorgortan laga gali karin ka difaacidda muwaadinka Soomaaliga kooxda Al-Shabaab ka sokow in qalinka lagu wada dugay dagaalka Al-Shabaab haddana madaxda dawlad goboleedyadu waxa ay muujiyeen sida ay uga go'an tahay in dagaalka Al-Shabaab aan loo kala harin arrin iska celino rag baan isaynaa diin bay sheeganayaan aan ka faa'iidaysano aan culimada kicino dadku ha kaceen hooyooyinku hadle ururada bulshada ha laado dadkii aan abaabulno dagaal galno wad kasta oo madaxa Soomaaliyeed maanta waxaa loo baahan yahay inaan geed saarno waxa la leeyahay ururkeega iyo maaragtay waxaa la oran jiray qabkeena aan meel dhigano xoolaha haddaan rabnay aan iska ilowno aan guntiga dhiishan isaga dhigno dalka difaaciisa iyo dadka nooleyntiisa loo gudbo sidaasi ma aha laguma sii jiri karo Soomaaliya dhibaatooyin badan ay ku jirtaa dhibaatooyinkaas oo kuwa dawladiidka maalin walba ay dadka qarxinayaan ayaguna ay ishaligayaan dadkuna ay haligayaan marka kuwa ayagana ishaligayo annagana nahaligayo oo nafidnay oo dhibaateeyay inaan meel looga soo wada jeesto inaan dherifno oon xanaaqno oon tacsida xataa iska dayno ayaa loo baahan yahay sababtoo ah dadka naga soo horjeedaa waxba naga maqarin waxay noo qabaan waana tuseen waxay haastaanna waana tuseen waxay nala damacsan yihiinna waana tuseen dad baa dhintay Soomaaliyeed oo tiro badan meel kasta waa ku dhintaan cadowga uu dilay taasi waxay u baahan tahay in laga jawaabo wixii la diray ficil laga muujiyo oo laga jawaabo way muhiimad taasna waa isku raacsanahay dhamaanteen waxay ahayd dhacdo xanuun badan oo aan ilaawi karin shacabka Soomaaliyeed waayo waxa halkan ku dhintay arday fara badan oo qaarkood ay ka yar yihiin 10 sano waxa waalidiin aan lixaadkooda dhameystirneen ayaa ku waayay carruurtii caawin lahayd sidoo kale aabayaal iyo hooyooyin halkan u yimid inay nolosha carruurtooda ka soo saaraan ayaa ku dhintay bal isweydii maxay galabsadeen dadkan oo loo laayay ka sokow maareynta wajigii koowaad ee dhacdadii 14 Oktoobar dawladda Soomaaliya waxay garwaaqsatay in waxa loo baahan yahay oo kaliya ay tahay in argagixisada loo ciqaabo weerarka ay ku laayeen dad birimigeeda ah waxa heega la geliyay dhammaanba ciidanka qalabka sida waxaana isbedel lagu sameeyay hogaamada kala duwan ee ciidamada ciidanka militariga ee waajibkiisu yahay in cadawga jamhuuriyadda uga yimaada dibadda ay ka difaacaan ayaa qaatay waajib kale oo ah in cadawga gudaha ay dabar jaraan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo hogaanka taliska militariga ayaa fahamka qorshaha dagaal ka dhana Al-Shabaab in laga fisho natiijo ka duwan howlgalladii hore shabaab lagu qaaday ayaa qaatay toddobaadyo taasoo ugu dambeynna la isku afgartay inta ay socdeen kulamadan madaxweynuhu la lahaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka waxay si hordhaca u gaareen degmooyin iyo tuulooyinka qaar ee kooxda Al-Shabaab fariisimay ku lahaayeen kuwaas oo ciidamadu ay la wareegeen waxaan joognaa hadda magaalada Basra oo cadawgu hore u qabsaday Al-Shabaab cadawga shacabka Soomaaliyeed waxaanan lagala wareegay shalayto 11kii 5tii galabnimo waxaan kaloo shalayta gacanta kaga dhignay tuulooyinka Daniga iyo tuulada leehdo Buulo Barwaaqo dhanka kale ciidamada xoogga dalka ee ka soo howlgalay degmada Afgooy iyo Jambaluul iyo Baghdad bay kala wareegeen iyo Shariif Cabdinaasir beertiisa ay dhinac kaga jireen cadawgii wuu cararay laakiin kooxa waxay ku harsan yihiin meelo aan ognahay oo cayiman insha Allah waa uga daba tegaynaa maantana waa ka safaynaa rabnaa maalmaha soo socda xooggiisiina wuxuu aaday meel aan anu ognahay oo saddex gobol xuduudooda ayagana waa uga daba tegaynaa insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa mar dambe inaysan shacabka Soomaaliyeed ee deegaankan aysan dhiman iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed howlgalkan maanta aan samaynay wuxuu hordhac ka ahaa howlgalkii heer qaran ee la bilaabi lahaa kaasna ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waa u diyaar garoobeen inay bilaabaan oo ay fuliyaan midkaanuna waxaa khatar degdeg ah oo walaha awgeed baa keentay in aan si degdeg ah howlgalkan u fulino dhinaca kale shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo sanado badan shabaabka eeganayay waxay hadda garwaaqsadeen inaanay sii daawan karin weerarada foosha xun ee kooxda Al-Shabaab ay u geysanayso shacabka
waxaana muuqda diyaargarow oo duqa magaalada muqdisho horkacayo. inkastoo madaxweynaha jamhuuriyaddu xirtay tuutaha ciidamada xoogga dalka, haddana fariintu ma ahayn oo keliya inuu u diyaargaroobay hogaaminta dagaal ka dhana cadowga, balse waxaa kale oo muuqatay inuu gudanayo waajib dastuuri ah oo ah in wax kasta uu ka hormariyo badbaadinta shacabka 10 sano sida xaqdarrada ah loo dilayay. waxaan aaminsanahay inaan ka guulaysanayno shabaab. khibradeedu waa leedihiin, wadaniyadeedu waa leedihiin, waad soo aragteen dowlad istaagan oo xoog leh, waa soo aragteen dowlad wanaagsan oo diyaar u ah inay hormuud idin noqotana waa haystaan oo annagaa koow ka ah inaan la gala dagaalka. shacab wanaagsan oo baraarugay oo soo jeedana waa haystaan oo idin daba taagan oo garab siinayna waa haystaan. wax noo haray ma jiraan. bil kadib weerarkii arxaan-laawayaashu ay ka fuliyeen isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho oo dalkeenu uu ku waayay muwaadiniin badan, ayaa dowladdu si miisaaman oo taxadar badan u qorshaysay howlgallo ka duwan kuwii horey al-shabaab ugu wajahnaa, taas oo u baahan muddo. ujeedaduna tahay in kooxaha nabadiidka la dhadhansiiyo xanuunka geerida si loo afjaro gumaadka muddada dheer ay ku hayeen shacabkeena.